kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada iyo soo kala arrimaha kala xiisaha leh ee dhacdooyinka kuwaas oo alaaba laga qoro oo aan idin soo xulno waxyaabaha ugu muhiimsan ee xubintan aan dhacdooyinka alaaba aan ku soo qaadano. Hadda warbixintana muuqaalkeena ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa jilaaga Salmaan Khan kaasoo kamid ah jilaayada ugu waaweyn Hindiya ayaa waxaan kaga soo xulinaa 10kiisa filim kuwaas oo naqdan kuwada ugu guul darada waaweyn ka soo gaaray qaybaha tiyaatarada ama big flopska muddo 30 sano oo ku jira film jelista. Salmaan Khan ayaa kamid ah aktarada ugu guulaha badan Hindiya wuxuuna gaaray darajada mega star oo xidig miisaan weyn ku leh Bollywoodka. Filimadiisana sanadahan dambe mid ugu falabsan waxayna ku kor u dhaafa 100 crore kilab kaas oo xidigada qaar inay ku adagtahay in filmadooda guulaha waaweyn gaarana ee darajadaas la yimaadaan. Haddaba aan u soo dhaadhacno warbixintan waxaan ku eegi doonaa Salmaan Khan iyo 10kiisa filim ee ugu guulaha darada waaweyn gaareen. Filimka waa Marigold. filimka magaciisa ayaa ah dahab laakiin wuxuu ku fashilmay inuu lacag macquul ah ka sameeyo qaybaha box office-ka. filimkan wuxuu soo xaray 1 crore wuxuuna noqday mid burburay. filimka labaad waa God to See Great Ho. filimkan waa mid leh qaybo madadaalo aan sida u burneyn wuxuuna soo xaray 13.5 crore wuxuuna noqday mid guul dareystay. filimka saddexaad waa Hello. filimkan ayaa ku saabsan nolosha dadka ka shaqeeya xarumaha telefoonada. filimkan wuxuu soo xaray 12.25 crore wuxuuna noqday mid flop ah. filimka afraad waa Heroes. filimkan ayaa waxaa la isku keenay xidigo waaweyn waxaana kamid ah Mithun Chakraborty, Sunil Deol, Preity Zinta iyo sidoo kale Salmaan Khan. laakiin wuxuu noqday mid flop ah wuxuuna soo xareeyay 13.25 crore. Yufraj waa filimka shanaad. Salmaan Khan ayaa sidoo kale waxa filimkan la isku keenay filmo waaweyn wuxuuna noqday mid guul daroobay asaguna soo xareeyay 17 crore waana mid flop ah. filimka lixaad waa Men or Masters kana. filimkan ayaa ujeedadiisa ilaa hadda aan la ogeyn wuxuuna noqday mid burburay wuxuuna soo xareeyay 8 crore. filimka toddobaad London Dreams. filimkan ayaa ku saabsanaa wiil ciyaar xaafaded ah oo noqonaya xidig weyn waana mid kale burburay wuxuuna soo xareeyay 26 crore. lambarka 8 waa Fear. filimkan ayaa waxa lagu soo caanbixiyay Salmaan Khan wuxuuna soo xareeyay 37.50 crore waana mid noqday below average ama mid guul aan sida u weyn gaarin. filimka sagaalaad waa Tube Light. marka sida dhabta ah loo fiiriyo waxa la dhahaa waa film uu Salmaan Khan isku dayay in uu film jelis ku sameeyo wuxuuna soo xareeyay 121 crore waana mid guul dhaxaad ah gaaray. filimka tobanaad liiska ugu dambeeya waa Restreet waa mid difaacaya dhammaan shuruudaha jir ahaaneed waana mid la yimid lacag fiican oo gaaraysa 161 crore saasitaan waa film lagu qasaaray. intaan ku soo xirna muuqaalkeena xiisaha leh aan ku eegina Salmaan Khan iyo 10kiisa filim ee flopka ka noqday kuwaas oo lagu qasaaray inkastoo filmadaasi ahaayeen kuwa rajo weyn laga lahaa qaarkood lacag waaliha lagu qarash gareeyay si macaash waaliha lagu helo. hasaate arintaas ayaana suurtagelin oo markii tiyaatar la saaray ay noqdeen kuwa lagu qasaaray kaas oo Salmaan Khan hogaamiye ka ahaa. intaan ku soo xirna muuqaalkeena aan ku eegayna hadda warbixintan ka shaleegan oo saarso kala asxaabta la wadaag wad kuma sintaan alaaba sad muuqaaladan u daawataan kan kiis xigana nabad galiyo.